koobaad aan ka soo sharaxnay mowduucina maanta wuxuu noqon doonaa mowduuc xooga xasaasi ah marka loo fiiriyo dhaqanka Soomaalida laakiin insha Allah tacaala waxaan shariicadu ka xishoon mayne waan sharxayna haddii Allah idin mowduucaas waxa waaye waa gogasha waxyaabaha qoys badan naga burburiyay ayay maanta waxaa ka mid ah gogasha ama isqancin la'aanta gogasha waxaan uga jeedaa waxa weeye isqancin la'aanta xagga jinsiga ah ee ay la kulmaan lamaanuhu markay isguursadaan taasoo keenta in qoysas fara badan oo jacayl badan ka dhaxeeyay oo si wanaagsan isugu kalsoonaa markii qodobka la waayo uu gurigaas u burburo arrinta darteed sababtu waxa weeye sideedaba guriga marka la isdooranayo baahida koobaad ee labada qof haysta waa baahi jinsi ah oo la doonayo qofba qof kale inuu u gudo baahidiisa haddii baahida jinsiga ahayd la kala gudan waayo ama si dhammaystiran loo kala la isu qancin waayo halkaas waxaa ka imaan karta culayskaasna wuxuu keenaa wax walba oo qofkaasu haysto inuu uusan ku qanacsanayn tusaale ahaan haddii gabadha gogasha ku qanci weydo oo weydo baahideeda jinsiga ahayd ninkeeda inuu u gudo kuma qancayso waxyaabaha kale oo dhan oo ay haysato waxna u tari mayso laanna way haysatay gurigay ku nooleed bay u yaaleen waalidkeed bay la joogtay nolol inay haysatay fiican baa dhici karta waxay cuntay haysatay waxay ku doortay waa baahi jinsi oo iyada haysay hadda adigu marka fahmi weydo baahida jinsiga ah ama aad iska fududaysato waxaa imaanaya qoys burbur baa ku imaanaya marka annagoo mawduuca hoos u geli doona waxaan rabnaa bal horta shareecada maxay ka tiri waxaa inaan si fiican u fahmnaa loo baahan yahay shareecada qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi huwa aladii khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma litaskunuu ilayha ilaahay baa idin abuuray haween saad isugu xasishaan litaskunuu waa wow baa u dambeeya wow waa waljamac baa la yidhahdaa waa labadooda laga hadlaya raggii dumarka ama ninkii naagta laga hadlaya litaskunuu ilayha kabacdi maxaa dhalanaya markii la isku xasilo la isqanciyo maxaa dhalanaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma bacdu taskina ayaa waxaa bilaabmaya jacayl iyo naxariis dhexdiinna laakiin haddii la waayo litaskunuu dhexdiinna inay ka bilaabato ama ka dhacdo haddii la waayo oo qofba qofka kale uu xasiliyo baahidiisii jinsiga ahayd uu u gudo ka dharjiya dhibkii culayska iyo kulaylka jinsigu ahay ka dharjiya haddii la waayo waxaa imaanaysa dhinac kale inuu dhacdo oo ah in lagu kala boodo gurigii in la isnaco in la ismaaragtay isha aan la isjeclaan dhibaata halkaa ka abuurmaysa dhinaca dhaqanka markaad fiirisa Soomaaliya haddii arrimaha gogasha laga hadlo waa lagu ceebsanayaaba waa wax yaab la wey oo maaragtay dhaqankan aad iyo aad ba arrinta cajiib ugu tahay waad la yaabaysaa habkii annagu waa waalidiintanadii horeeto ama dadka hadda waayeeladaah oo jooga ama hadda meel dhexaadkaaba oo 50-60 gaarayba haddaad waraysato fikirka ay ka qabaan gogasha waad la yaabaysaa waxay ku leeyihiin war waxaas wax laga hadlo ma wax in hadda la iska waraystaba u baahan ma hooyooyinkuna waa la mid waxyaabaha sida aan ka hadlayno ma ka hadli karaanba odayaashii hore waxayba aaminsanaayeen haweenkaba in loo tago habeenkii ilmo hooyadood ay tahay fiirso habeenkii ilmo hooyadood tahay oo ay dhiig ka qabaysato oo laga yaabo inay uur yeelato markaasayba fiirsan jireen keliya waxayba aaminsanaayeenba in haweenka loo tago waqtiyo kaleba inay khasaaro tahay naftooda inay khasaaro ku tahay khayr Allah siiyo kulleydii waqti ba ahayd waqtiyada la soo maray kamid ah laakiin ma ahayn wax sax gabar in habeenkii caada ka qabaysta la sugaa ma wax sharci u qabana ma wax aqal u qabana ma saasay lagu soo calaamado lagu soo koray dadka lagu soo tafiirmo dadku soo gudbiyay waxaan wareystay hooyooyinkii hore hooyo kamid ah oo ku yiri weligaa adiga iyo maxaan ku yiraahdaa xaajigaagu
adagoo oo jirkaagii bannaan yahay oo qaawan weligaa ma ku arka waxay ugu tiri markaa aniga korkayga oo bannaan ninkaygu arkaya ma doqon baan ahay bay tiri doqon weligay korkayga bannaankaygu ma arag bay tiri haw marka see ilmo lagu dhalay seebaa lagu soo koriyey see nin iyo naag lagu soo kaca sidaas si lamida odayaashii hore qaar aan wareystay inaan wareystay yaa waxaan ku yidhi weligaa xaaskaaga ma dhunkato nin oday weligaa xaaskaaga ma dhunkataa wuxuu yidhi waaka aniga xaaskayga wejigayga maxaa isu keenaya yaa oo waaye haddaan wejigeyda isu imaanayn seebaad ilma uga dhashay oo aada maaragtay xaaskugu ahay war halla aha walaalkayo aniga wejigeeda sarkama wejigeeda halkaasuu yaalla anaha hawsheeda halkaan ka qabsanaayo wal fiiriya maxaa aniga wejigeyga isu keenaya halkaasugu jiraan wejigeedii madaxeedii dantaydana halkaanaan ka dhamaysanaya oo halkaan suka ii taallaya maxaa halkaan ka doonaya madaxeedii wejiga cajiib okay dhaqanka noocaasa ayaa annaga ka nimid xishoodkiibaa wuxuu qariyey xalaashi wixii xalaasha ahaa oo diintu noo bannaysay ee in la isku xasila ahayd in la isbarta ahayd in la isfahmo ay ahayd xishoodkii iyo dhaqankii xishoodkiibaa qariyey wixii xalaasha ahaa wixii xalaasha ahaabaa waxaa loo arkay wax la qarinayo mama rabo saas haddaan marka dhaqanka noocaas aan ka nimid oo aan baadiyahaas ka soo jeedno waxay aada iyo aada ugu badan tahay maanta dadkeena magaalooyinka jooga oo maanta ama waxbartay ama siyaasiyiinta ah ama ganacsatada ah dhaqankaas dhaqamo aada ugu dhowdhow baan leenahay marka loo fiir dhinaca gogosha ma fiirino kama fekerno gabadhaan gursina guri waa noo joogta xaas waa noo tahay laakiin habkaan u macaamilayno hab marna aan ka fekerna gogashaas xaqa ay leedahay in la waguto si dhammaystiran laba dhinacba 20% baa la oran karaa dad ragga Soomaalida ah ayaa arintaas maskaxdooda ay ku jirtaa waxaa la oran karaa in badan oo kamid waa halmaansan yihiin waqtigan marka hadda casriga ah oo adduunkii moobilka gacantaada ku jiro oo meesha doonto si fudud ula xiriiri kartid oo qiso kasta iyo dhacdo kasta maanta dunida taala moobilka lagu soo shubay gabdhaha maanta jooga haddii aan gogashooda sida ay rabaan ama ay ku qanci karaan uusan ninkeeda u samayn maxaa ka dhalanaya laba arrimood oo weyn baa ka dhashay sababta maanta adduun waxaa la joogaa maanta miniteska wixii dhaca halka ay ku jiraan adduun waxaa la joogaa maanta qof walba wax akhriyo inta badan dareenkiisu soo jeedo gabadha waxay guriga u timid ay og tahay guriga waxay u timid gabadha waa garanaysaa adna waxaad guriga keensato garanaysaa dhaqmaad baad u keensatay dhaqmaaduna waa in aad nin u noqoto iyadoo ay naag u noqoto haddii la kala waayo marka xal guriga ka dhici maayo waxa gabdho badan garoob ka dhigay waa fashil ay ku fashilmeen baahidii gurigeeda inay si dhammaystiran u hesho furiin fara badanna uu ka dhashay waxaad arkaysaa gabar dhalinyar oo wiil dhalinyaraha u qabo oo mutacallim ah ama ganacsada ah oo la ifuro hal la ifuro ma doonayo haddaad weydiiso taa sababta aad walaalay furiin ku doonaysaa maxay tahay waxay ku leedahay anaa og ma doonayo anigaa garanaya ma rabo waa nacay intaa ma dhaafin karaysid waay waxay ka xishoonaysaa inay tiraahdo anigu gogashii waan ku hungoobay gogashii waa ku hungoobay inay tiraahdo yay ka xishoonaysaa hadday saa tiraahdana cid ku garab istaagto tiraahdo arrintaasu waa sax ma helayso lianna ceeb baan bawrana xagga dhaqanka markaan raa war gabadhan guri meesha waxay u timid inay nin hesho inay gogasha ku qanacdo hadday weydo inay sheegato xaqay u leedahay inay ka hadashaan xaqay u leedahay asaga inay ka bilowal raay u sheegto aysan ka aamusan tiraa saan sax maaha inay frustration iyo madax wareer iyo caabuq madaxa ku dhaco gabdhihii oo kulligood madaxa ka wada xanuunsan yihiin waxaa sabab u ah qanacsanaanta aysan ku qanacsaneen gogasha iyo ogaansho la'aan ragga gruubkana ragganagii aysan ogeynba arrintaasu muhiimadda ay reerka u leedahay furiin fara badan bay noo keentay kala tag fara badan bay noo keentay arrintaa waa in ragguna ku baraarugaan gabdhuhuna waxaa la rabaa inaysan qarsan mushkiladaas ay sheegaan dhinacaas waxaad moodaa
waxyaabahan adduunkan saaran oo ilaahayna siiyey tusaalooyin fara badan baa ku jira. shimbiraha bal tusaale usoo qaado qoolleyda la dhaqaalaysto oo magaalooyinka lagu koriyo. ninku shimbirta uu asagu uu saaxiibta u leeyahay ama uu waa qabaanba ciyaalku dhaha markay yaryar yihiin shimbiraha kale kuma qarsoonto. muxuu sameeyaa markuu rabo inuu boodo? miyuu iska boodaa? iskama boodo. cabaar buu ku dul wareegaa, waa ku guuxaa. isagoo guuxayuu ku dul wareegsadaa. markii cabaaru ku dul guuxa kadib buu cunto siiyaa. cuntada markuus iyadoo raalli ah shimbirtii iyo u fariisanaysa markaasuu boodaa. una fiirsada. waxaa taa la mid ah digaagga. diiqu digaagga halkaa iyadoo joogta ayuu halkaasoo kale cunto ugu yeeray quququq buu leeyahy. waa u soo ordaysaa waa u imaanaya. baaltaag wax la yidhahdo sameeya cabaar buu ku dul wareegay. hadba gees ka soo galaa. u yeeristaasuu u yeerayo iyadu waa ogta. digaagtu waa ogta. haddii digaag kale oo iyada la mid ah oo dhadig ah ay u yeerto uma tegiso. wuxuu ugu yeerayay way ogta. waa hadalkii ka horreeyey mubaasharada wey, macaasharada wey. baaltaaggaas kadib ayuu boodayaa. ma digaaggii shimbir baan ka liidanaa haddaan rag nahay? digaaggii shimbirta miyaan ka liidanaa? maan gabdhaha anaga marka horeba la hadalno, maanu sheekayno, maan hadal jacayl iyo wanaag iyo xurmadan raahno, maan jawi fiican kula hadalno, maan ka qoslino, maan la farka cayaarno. maxaan ugu soo boodaynaa sidii maxaan ku idhaahdaa qof kaa fakanaya ama kaa cararaya? maxaan ugu soo boodaynaa? waxaan aqaanaa rag badan oo farka cayaar iyo sheeko iyo qosol iyo jacayl gabadhood ka hormarin isaga habsanaya xaasaskooda oo kul warniyo anigu wax maba garanayaba saan u socdan baa isaga habsadaaba. ma xoolaa? inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. war qofkan waa qof dareen leh oo fikir leh oo waxa kugu jira oo dareenka adiga ku wada saa u baahan tahay inaad u dhigto dareenka uga baahan tahay. kuwa kale gabadhooda waaba kufsadaanba. waa kufsadaan markaan leeyahay xaaskooda waqti aan munaasib ahayn ayay laga yaabaa iyo meelaan munaasib ahayn yaa laga yaabaa inta guri weyn inuu qolmarajoonta ku dhufto oo qolof ku dhufto oo dantiisa gubta isaga tago. waana naga dhacdaa inta badan guryahanaga way ka dhacdaa. war xaasaskani yaana kufsanin yaa la idmo. aad iyo aad ba u mahadsantihiin. casharadana kale insha allahu yaanu geli doonaa ee qoysaska burburiya haddii alla idmo. waa qoys bilow idin leh kulanti dambe oo wanaagsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.